habeen wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka caawaraadii hawdaagay muqdishadii haya waxaa ka mid ah al-shabaab oo weerar qarax iyo mid toos u qaaday mid ka mid ah hoteelada ku yaala magaalada muqdisho dhaawacyo badan oo la gaarsiiyey isbitaalada ku yaala muqdisho iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya waxyeelo ay ka soo gaartay weerar ka dhacay xeebta Liida ee Muqdisho wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo ka badbaaday qarax miino oo lagu leegtay deegaanka ka tirsan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya shirka madaxda dowladda iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada dalka oo la filayo inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowladda Galmudug madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo la filayo inay tagaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyo madaxweyne Dani oo ku dhawaaqay inuu tagi doono magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug al-shabaab oo weerar ku dilay askar ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya diyaarada Turkish Airways oo dib u bilaabayso duulimaadkeeda gudaha dalka Soomaaliya howlgallo ciidanka amniga dowladda Soomaaliya ay ku xaqiijinayeen ammaanka oo ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan askari ka tirsan ciidanka Soomaaliland oo deegaano ka tirsan maamulka Soomaaliland ku toogtay askari kale tababar ku saabsan ka hortagida askareynta carruurta oo lagu qabtay magaalada Baydhabo ee deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya goobaha ganacsi magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo xiran kadib canshuur la dul dhigay ganacsada ku dhaqan magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud wararka dibadda ee caawraadiyaha hawdaagay muqdishadii waxaa ka mid ah shirkadaha ganacsi Imaaraadka Israa'iil oo bilaabay in ay iskaashi ay sameeyaan wadajirku waa wada noolaashuhu waa inaan la kala maarmin in aan la kala maarminna waa inay wax naga wada dhaxeeyaan wax kastaba way naga dhaxeeyaan aynu wada lahaano waana wadaag radio oo kule nala wadaag waqtigaaga nagula wadaag wanaag iyo waxsan sheeg wadaag FM radio wadaag waa wehelkaaga iyo waqtigaaga wadaag FM wadaag radio wadaag FM waa habeenimo xada isniin ay soo galayso taariikhda ay ku beegan tahay 16 bisha 8 sanadka 2020 warkaas jiran caaw waxaynu hayay wariyahna Maxamed Cusmaan Goldan mahadsanid Nuurdin Shardi bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan dhageystayaal warkii oo fidsan al-shabaab ayaa waxay weerar toos ah iyo qaraxiyo ku qaadeen hotel ku yaala xeebta Liido iyadoo qasaaraha ka dhashay weerarkaasi ay sii kordhayaan wariyahna Nuurdin Xasan Ibrahim ayaa warkan faafaynaya qaraxa ayaa ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa oo ka dhacay afaafka hore ee hotelka Elite ee ku yaala xeebta Liido ee magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana qaraxa kadib xigay weerar toos oo rag hubeysan oo ka tirsan xarakada al-shabaab ay ku qaadeen gudaha hotelka Elite ee ku yaala xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir afayeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Ismaaciil Muqtaar Cumar Oranjo ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in dableyda ay gudaha u gashay hotelka Elite ee magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana ay muddo ay ka dhex dagaalameen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dadaal badan ay ku bixinayaan samata bixinta dadka ku go'doonsan gudaha hotelka Elite ee ku yaala xeebta Liido ee Muqdisho manacada ayuu sheegay in mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ku jiraan halkaasi boqolaal qof oo ku sugnaa xeebta Liido ka hor qaraxa ayaa waxa ay ku kala firdheen daryanka xoogan qaraxa oo laga maqlay qayb ka mid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho warar hordhac ayaa laga helayaa qasaarihii ka dhashay weerarkaasi al-shabaab ay ku qaadeen hotelkaasi Elite ee ku yaala hotelka Elite ee ku yaala xeebta Liido ee magaalada caasimadda ee Muqdisho dadka ku geeriyooday weerarkaasi al-shabaab ay ku qaadeen halkaas waxaa ka mid ah agaasimihii xiriirka gobolada ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cabdi waxaana sidoo kale ku dhaawacmay qaade ka tirsan telefishin qaranka Soomaaliyeed kaas oo lagu magacaabo Maxamed Cabdi Xuseen oo ka tirsan howlwadanada telefishin qaranka Soomaaliyeed waxaana sidoo kale qasaaraha la sheegaya inuu gaarayo ku dhawaad 15 ruux oo dhimasho oo iskugu jira dad shacab ah oo ku sugnaa hotelka waxaana sidoo kale la sheegayaa in dhaawac uu marayo ilaa 30 qof sida laga soo xigtay howlwadanada gaadiidka gurmadka degdega ee ambulance waxayna sheegeen in ku dhawaad 28 ruux ay ka qaadeen nawaaxiga hotelka Elite ee Muqdisho wasiirka howlaha guud ee guriyeenta Galmudug Axmed Washington ayaa sidoo kale dhaawac uu ka soo gaaray weerarkii galabta ka dhacay hotelka Elite ee ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana sidoo kale aan la ogeyn qasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkaasi ka dhacay hotelka Elite oo al-shabaab ay ku qaadeen halkaasi wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa tacsiin ka diray geeridii agaasimihii xiriirka gobolada ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale dadkii ku dhintay weerarkii ka dhacay nawaax hotel ku yaala nawaaxiga Liido ee magaalada caasimadda ee Muqdisho Elite wasiirka warfaafinta ayaa kaga tacsiyay dadkii ku geeriyooday halkaasi dhinaca kalena milkiilaha hotelka la weeraray caawa ayaa waxa uu ka hadlay qarax lagu qaaday hotelkiisa
xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur oo ka mid ah golaha shacabka ayaa ka badbaaday qaraxa iyo weerar lagu qaaday hotel Elite ee magaalada Muqdisho. xildhibaanka ayaa sheegay inuu ku sugnaa markii qaraxu dhacayay hotelka gudihiisa. waxa uu sheegay inay jiraan dhaawacyo iyo dhimasho, waxaana uu tacsi u diray dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay weerarkaasi. dhammaan Allah u naxariisto intii ku dhimatay weerarkii galabta ay kooxaha argagixisadu ku soo qaaday shacab Soomaaliyeed, gaar ahaan hotel Elite oo aan xilligaasi ku sugnaa. inta dhaawac Allah bogsiyo waana caafimaad qaba dhammaan ehel iyo asxaab, ayuu yidhi xildhibaanka. ku dhawaad 20 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen, tirintaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax iyo weerar toos lagu qaaday hotelka lagu magacaabo Elite oo ku yaala xeebta Lido ee magaalada Muqdisho. wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya waxa uu ka badbaaday qarax miino gobolka Gado. wariyaheena Nuruddin ayaa warkan faafaynaya. wararka ka imaanaya gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre kolonyo uu la socday qarax lagula egtay deegaano ka tirsan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya, halkaasna wasiirka uu kaga badbaaday qaraxaasi. wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka badbaaday qarax miino oo lagula beegsaday deegaano ka tirsan gobolka Gado, sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Gado. wasiir Goodax ayaa xilka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa markii qarax lala eeganayay waxa uu ku socdaalayay wado isku xirta degmada Doolow iyo sidoo kale magaalada Bardaxaawo, gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Unsi oo ka tirsan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya. mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Gado ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in qaraxaasi khasaare dhimasho uusan ka soo gaarin, isla markaana uu sababay khasaarooyin dhaawaca, isla markaana wasiirka uu ka badbaaday qaraxaasi miinada ahaa, isla markaana lala eegtay xilli wasiirka uu ku socdaalayay inta u dhaxaysa magaalooyinka Doolow iyo sidoo kale magaalada Bardaxaawo ee gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya. wasiirka ayaa hadda ku sugan degmada Doolow ee gobolka Gado, waxaana mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gado ay sheegeen in wasiirka uu ka badbaaday qaraxaasi ka dhacay halkaasi. diyaaradda Turkish Airlines waxay dib u bilaabaysaa duulimaadkeeda gudaha Soomaaliya. Abduwaab Xuseen Cali ayaa warkan faafaynaya. wasaaradda gaadiidka dowladda Turkiga ayaa ku dhawaaqday in ay dib u bilaabayso duulimaadyada caalamiga ah ay ku tegi jirtay dalal dhowr ah oo ku yaala qaaradda Afrika, kuwaas oo horey looga hakiyay sabab la xiriira cudurka COVID-19. wasiirka gaadiidka iyo kaabayaasha dalka Turkiga Adil ayaa sheegay in ay soo gabagabeeyeen wada hadallo ay kula jireen 92 dalkaas oo ku saabsanaa dib u bilaabida duulimaadyada ee dalkaasi ay ku tegi jireen diyaaradaha shirkadda Turkish Airlines. waxa uu sheegay in duulimaadyada qorsheysan iyo kuwa aan qorsheysnayn intaba ay bilowdeen 13 bishan si toos ahna ay u sii socon doonaan maadaama dhaqaale fara badan ay dowladda ka soo geli jireen duulimaadyadaasi. dhinaca kale, madaxda shirkadda Turkish Airlines ayaa waxay sheegeen in dhaqaale yari ay soo wajahday shirkadda wixii ka dambeeyay markii cudurka COVID-19 uu ka dilaacay caalamka, isla markaana ay khasaareen lacag dhan 2.23 bilyan ee lacagta liiraha Turkiga oo u dhigan 315.9 milyan oo dollar. wadamada diyaaradda Turkish Airlines ay safarka ku tegi jirta waxaa ka mid ah Soomaaliya, Djibouti, Belgium, Sweden, Russia, Serbia, Senegal, Masar, Libya, Ukraine, Lebanon, Indonesia, Talyaaniga, Kuwait, Albania, Algeria iyo wadamo fara badan oo Jarmalka iyo Faransiiska iyo UK iyo Hong Kong iyo Israel ay qayb ka yihiin. waxaana wasiirka uu sheegay in 92 wadan si toos ah duulimaadyada u tegi doonaan Soomaaliyana ay muhiimad gaar ah Turkishka ay u leedahay. madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland waxay aqbaleen ka qaybgalka shirka Dhuusamareeb. madaxweynayaasha Puntland Jubbaland oo ugu dambeyn ogolaaday ka qaybgalka shirka Dhuusamareeb ayaa la filayay inay gaaraan caasimadda oo ay joogaan wafuudda kale ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. labada madaxweyne ayaa saacadii la soo dhaafay wararku soo baxay waxay sheegayaan inay shuruud ku xireen ka qaybgalka shirka magaalada Dhuusamareeb, hayeeshee haatan la shaaciyay inay tagayaan. wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa sheegay in labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland ay tagi doonaan magaalada Dhuusamareeb, isla markaana uusan jirin wax isbedel oo shirkaasi ku imaanaya. waxa uu sheegay labada madaxweyne ay howlo gaar ah u kala maqan yihiin, isagoo sheegay inay saacada in maalmaha soo socda la filayay in Dhuusamareeb gaaraan. madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo safar Djibouti ka soo laabtay maanta soona gaaray Garow oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin inay tagaan shirkaas, isagoo sheegay inay ka filayaan waxyaabo wanaagsan. dabcan
sida lala socdo cid walba ay dareemayso dalka Soomaaliya wuxuu galay marxalad kala guur waxaa socda maraaxishii madaxweynaadkii dawladda federaalka uu gabagaba yahay oo aan rajaynayno in doorashooyin ay dhacaan runtiina la wada sugayo dabcan sidaad ogtihiin doorashooyinkaas waxaan rajaynaynaa inay sida ugu habboon ay ku dhacaan xaaladaha ka soo cusboonaaday siyaasadda Soomaaliya isbedelada ku dhacay shirkii Samareeb 2 ka dambeeyay dalku galay dabcan xukuumaddii hawsha waday fulintina looga fadhiyo ayadii meesha ka baxday runtii hadday taas baxday waxaan sugayn anagu in xukuumad kale iyo ra'iisul wasaare kale oo bedelo hawsha sii wada inay meesha soo baxdo waxaa muuqanaysa inaan weli dhinacaas la aadin dhinacyo kalena la aadin runtii arrintaas Puntland weli waa ay tashibay ka fiirsanaysaa oo inay ka tashanaysaa waxaa kale oo muhiim ah khudbadii madaxweynaha shalay uu akhriyay oo ku bayaaniyay hadallo badan iyadana waxay u baahan tahay in si taxaddar loo eego dabcan annagu waxaan aaminsanayn in marxaladii hay'adaha sharciga ah ay gabaabsi yihiin wadadii saxda ahayd oo sharciga ahaydna la gaari waayay qof iyo cod Puntland ma diidana qof Soomaaliyeed ma diidi karo maxay la dastuurka ku qoranta laakiin waxa qof walba qiraayay muddada xileedka harsan iyo baahida loo qabo in qof iyo cod la qaaro inay adag tahay taana waxa cadeeyay gudoomiyihii doorashooyinka oo si cad u sheegtay inaysan muddada xilka harsan aysan ku qaban karin haddii wadada sharcigu ay xiranto waxa dabiici ah oo ilaa ay soo jireen ah ilaa ay 2000 in wada siyaasi la aado xal siyaasi la aado si dalku uu hore ugu socdo Puntland 22 sano ay jirtay 98 jaartarkii ugu horeeyay waxa lagu dhigay in qof iyo cod uu noqdo baarlamaanka soo socday gali doona mar walba oo la gaaro madaxweynaadku inuu gabaabsi yahay la arko inaan diyaar garow lahayn waxa la aadaa xal siyaasi ah dalkana hore u socdaa dhibaatana ma dhacdo ilaa hadda laga soo gaalay oo salay halka lagu daafuray oo shahaadooyinka la siiyay 10 warkii dacwa kala socoteen warbaahinta wadaag media oo naga inta dhageystayaashu ay ku maatiin dhageysiga warka habeenimo